maro xildhibaan kasta oo golaha shacabka ka tirsan wuxuu xaq u leeyahay inuu marka koowaad si xor ah oo aan maxaa la yidhaahdaa discrimination iyo calaamad gaar aysan saarnayn inuu u cabiri karo mabdiciisa. waxaan rabaa inta aan ku horumarinin programka ugu muhiimsanaa oo guddoomiyuhu waxaad ogsoon tihiin inuu maalin dhoweyta amar ku bixiyey in liisaskii xildhibaanadii soo xaadiray golaha iyo kuwii aan imaanin la kala saaro loona soo gudbiyo xildhibaanada si loo marsiiyo xildhibaanada maxaa la yidhaahdaa aan xil iska saarinin imaanshaha golaha si maxaa la yidhaahdaa xeersaadka loo marsiiyo in guddoomiyaha loo soo gudbiyo. saas daraaddeed maanta waxaana laga fadhiyaa na laga sugaayay inaan soo gudbinno liisaskii guddoomiyaha soo gudbinno si aan u hubinno habdhowrayaasha liiskii soo gudbiyeen inay maxaa la yidhaahdaa sidii ahayd saxda usoo dhammaystiraan. waxaan guddoonka iyo habdhowrayaashaba ka codsannay inaan faylasha naloo soo gudbiyey aan mar labaad dib u fiirino oon dib usoo saxno. saas daraaddeed waxaan rabaa golaha u sheego mudan guddoomiye liisaskii maxaa la yidhaha attendansiga oo xildhibaanada golaha shacabka waxaa lagu soo wareejiyey guddiga anshaxa ee baarlamaanka 11aad. mudan guddoomiye mudanayaal guddiga joogtada ee baarlamaanku shalayto dood dheer iyo waxay ka galeen habka shuruucda baarlamaanka u ansixiyo. sida ogsoontihiinba xeeroosaadka golahu wuxuu caddaynayaa inuu xildhibaan kastaa xaq u yeesho sharcigii la keeno inuu fikir ku darsado wax ku daro waxna ka bedelo. waxaa ayaamo dhowtina caadistay inta maanta oo kaleeto sharci la keeno la qaybiyo kabacdina maxaa la yidhaahdaa isla meeshas looga doodo waxaana horey loo soo fiirin. waxaa xeerkayuu sheegayaa hindi sharciyeed kasta sida maantaba loo qaybiyey hindi sharciyeed kasta inta aanu gelin akhrinta koowaad oo wasiirka keenay ama xildhibaano ay keeneenba inta aanu gelin akhrinta koowaad inay xildhibaanadu soo haystaan sharcigaas 48 saacadood ka hor intuusan akhrinta koowaad gelin. waxay u saamaxaysaa xildhibaanka wasiirka ama ciddii kale oo sharciga keentay markay akhrinayso inay fahmi karaan qofkaas wuxuu akhrinayo. laakiin haddii hadda inta lagu qaybiyo isla haddana la akhriyo macnaheedu waxa waaye markhaatin baa ka noqonaysaa maahan wax meesha ku jiraa ma jiro qof maxaa la yidhaha horey u haysta ama horey ugu warqabay ma jiro. sidoo kale markii uu maanta sharciga naloo qaybiyey 48 saacadood markaan soo haysano waxaa ka bacdi golaha loo ballaminayaa maalinta akhrinta koowaad uu galayo. maalintaas xildhibaan walba asoo buug soo akhriyay ka warqaba yuu imaanaya. wasiirkii ama xubnihii sharciga soo jeediyey markay akhriyaan sida xoorasaadkay uu sheegaayo doodda waxay ku koobnaanaysaa sharci ahaan sharcigaas maxaa la yidhaha mabaadi'diisa guud ay ku koobnaanaysaa dastuurka muwaafaqsan yahay maxaa la yidhaha shareecada islaamka ma ka soo horjeeda maxaa la yidhaahdaa ma loo hayaa dhaqaale ma loo hayaa sharci kale horo jira ma ka hor imaanaya waxyaabahaas noocaasa doodda ku ekaanaysa ee gudaha loo sii geli maayo. markaasa waxaa lagu wareejinayaa guddiga iskale shaqadaas iskale guddiga shaqadaas iskale marka lagu wareejiyo oo guddigu wax ka soo daro wax ka soo bedelo kabacdi haddana waxaa loo qaybinayaa golaha 3 maalmood ka hor inta aan doodiisu furmin. macnaheedu waxay tahay xildhibaanku wuxuu haddana mar labaad helayaa jaanis 3 maalmood uu ku akhriyo ayadoo la socoto wax ka bedelistii iyo ku daristii guddigu sameeyey. 3 maalmood markuu soo haysto kabacdi wax loo imaanayo dooda loo imaanayo markaasaa maxaa la yidhaahdaa markaasaa dooda laga doodaya markaasuu u gudbaaya akhrintii maxaa la yidhahdaa saddexaad u gudbaaya. waxaa guddiga xeeroosaadka waajib ka saaran yahay inay ilaaliyaan xasaanadda iyo xushmadda xildhibaanadu ay leeyihiin. sidoo kaletana waxaa xil ka saaran yahay inay ilaaliyaan anshaxa iyo maxaa la yidhaha dhaqanka goluhu ku dhaqmaayo. mudane maanta waxaa ujeedaan in loo qaybiyey sharci ay ku lifaaqan yihiin warqaddii uu soo qoray wasiirkii gudbiyey ra-iisul wasaarihii dalka oo soo gudbiyey golaha iyo tii guddoomiyaha golaha shacabka ku lifaaqan. macnaheedu waxay tahay golaha laguma qaybin karo
xeeroosaadka markii la fiiriyo golaha laguma qaybin karo sharci iyo wax kasta waxay doonaanba ha noqdaane waana guddoomiyaha golaha shacabku soo fasaxin laguma qaybin karo taasaa waxay keenaysaa sharcigii uu ra-iisul wasaaruhu soo dalbaday golaha kusoo dalbaday inuu soo gudbiyo inuu guddoomiyuhu lifaaq saaro intaan markaa u gudbo waxaa baarlamaanka culays aada u fara badan uu ka qabsaday imaanshaha kulanka soo xaadiridda golaha mudanayaal marka ugu horeysa sharcigu wuxuu qabanaya xildhibaanada oo keliya qaban maayo guddoonkana waa qabanaya sharciga xorosaadka guddoonka golaha shacabka ee shir guddoominaya waxaa laga rabaa inay soo fadhiistaan miiskan 10 subaxnimo sida xeerka noogu taalo guddoomiyaha golaha shacabka ama markaasi ku-xigeenada ciddii jeer garaynaysa golaha waxaa laga rabaa kursiga hadda la fadhiyo guddoonku inuu soo fadhiisto 10 subaxnimo 10 subaxnimo shirku waa furmaaya haddii kooranku dhammaystiran yahay hadduu dhammaystirmi waayo guddoomiyuhu wuxuu ugu darayaa golaha 1 saac oo dheeri ah halkaas saac gudahooda markuu dhammaado oo 5 saac la gaaro haddaan kooranku dhammayn guddoomiyaha waa xiraaya golaha waa xiraaya waxaa marka badatay ayadoo shuruuc aad u fara badan noo taalo inay haddana suurtagal noqon weyso kooranku inuu dhammaystirmo xildhibaano 275 xildhibaanaan nahay 276 sorry inay marka laga waayo 139 xildhibaan oo goluhu ku furmo xogaa waxay noqotay culays waxaa laga maarmi waayey marka in dib loo isticmaalo sharcigii noo yaalay xildhibaanadu waa kala duruuf kuwa xanuunsan kuwa shaqo ku maqan kuwa maxaa la yidhaha howlo kaleeto kala duwan qaranka u haya iyadoo tixgelinteeda leh haddana xildhibaan kasta waxaa waajib ku ah inuu golaha soo xaadiro mudanayaal golahan wuxuu furmayaa 9 subaxnimo xildhibaan kasta oo caafimaad qaba oo aan shaqo ku maqnayn ama aan cilad kale ku imaanin waxaa laga rabaa inuu golahan fadhiyo 9 subaxnimo waa mas-uuliyad oo qof kasta ay saaran tahay guddoonka baarlamaanka waxaa laga rabaa inay soo fadhiistaan 10 subaxnimo guddoonku markuu soo fadhiisto 10 subaxnimo ee la gaaro 10 iyo barka subaxnimo waxaa la joojinayaa liiska la saxiixaayo oo bannaanka yaala maxaa la yidhaahdaa la furaya liis cusub oo la yidhaahdo liiska xildhibaanada mudanayaasha soo dahay la yidhaahdo yaa la furaya 10 iyo barka ka bacdi waxaa laga yaabaa golihii inuu 11 furmay xildhibaan inuu yimaado 1 duhurnimo laga yaabaa mid inuu yimaado 12 duhurnimo laga yaabaa mid inuu yimaado 11 inuu yimaado laga yaabaa xildhibaan kasta oo 10 iyo barka subaxnimo ka bacdi ka soo daahaa wuxuu la mid noqonayaa xildhibaan soo daahay xildhibaankaas soo daahay waxaa loo tixgelinayaa 3 maalmood haddii uu soo daaho 1 maalin asoo maqnaa yaa loo tixgelinaya xeersadkii nagu taala mudanayaal xildhibaankii 3 maalmood ay gaarto soo daahitaankiisa guddoonku waxay u soo gudbinayaan guddiga xeeroosaadku wuxuu soo jeedinayaa maxaa la yidhaahdaa digniin waxaa loo gudbinayaa guddoomiyaha waxaa la marsiinayaa habdhowraha waxaana loo gudbinayaa xubintaasaa loo gudbinaya xubinta waxaa la siinayaa warqad digniin ah hadduu 3 maalmood soo daaho waxaan u malaynayaa inaan maxaa la yidhaahdaa aan kaleertahay haddii xubintu ay maqnaato xildhibaanku hadduu maqnaado sabab la-aan هذا ما له مقلة قدوميها مرسل بقبة قدومي ما له مقلة مرسل بقبة عكس مقلكين هدو حلبان كدوي بري مقناده سبب لآن waxaa xeersadka nagu taala gunnadiisa in laga goynaayo 5 meelood meel ka mid ah hadduu maqnaato 7 maalmood cudur gaar la'aan shaqo kale uusan ku maqnayn caafimaad darro isaysanin sabab maangal ah oo lagu qanci karo uusan keenin waxaa lagu ganaaxayaa ku taala 5 meelood meel ka mid ah gunnadiisa guud yaa la ganaaxayaa mudanayaal waxaa kaleeto oo ayaduna sharciga loogu yaala xildhibaanka soo xaadira oo yimaado waqtigii loogu talagalay ee ama saxiixi waayo kooranka ama hor istaaga inuu kooranku buuxsami waayo sidaas si la mid ah
habdhowrayaasha soo gudbinaya hadday ku caddaato xildhibaankaasi waxaa la horgeynayaa guddiga anshaxa baarlamaanka cuquubadiisuna waxay ka bilaabanaysaa in maxaa la yidhaha gunnadiisa laga jaro 5 meelood meel laga jaro hadba waxay la ekaanaysaa sida uu maxaa la yidhaahdaa uu xildhibaankaas uu behaviorkiisu yahay waxaa ka mid ah golaha xildhibaano wasiirro ah oo u haya qaranka shaqo muhiima u haya oo golaha iyagaan uu ansixiyey inay ka mid noqdaan golaha wasiirada ka mid noqdaan waxaan is leeyahay baarlamaankan waa nambarkii ugu yaraa 40 iyo wax la mid ahaa wasiirro ka ah xildhibaan kasta oo wasiir ah waxaa waajib ku ah inuu kooramka saxiixo inuu yimaado subaxdii saxiixo kooramka waajib ku ah haddii markaa shaqo qaran u taalan shaqadii qaranka u taalay u aado waa inuu mas-uuliyad saaran tahay wasiirka markuu xildhibaan yahay mas-uuliyadda wasiirnimadana waa saaran tahay mas-uuliyadda xildhibaannimadana waa saaran tahay waxaa kaleeto oo xeerosaadka qodobada wax laga bedelay ka mid ah xildhibaan kasta oo wasiir ah waxaa qasab ah inuu ka mid noqdo guddiyada joogtada baarlamaanka guddi ka mid ah guddigaasuna waa inaysan ahayn guddiga wasaaraddiisa la xisaabtamaysa waxaana u dooraya guddoomiyaha golaha shacabka wasiirkaasi guddiga uu ka tirsanaanaya qasab kuma ahan wasiirkaasi inuu ka soo qayb galo kulamada guddiyada markii asagu uu arko waqti inuu heli karana waa ka soo qayb galaya mar kaleetana maxaa la yidhaahdaa shaqada ee loo idmaday uu ka shaqaynaya guddoomiyaha golaha shacabka marka wuxuu leeyahay awoodda ah inuu asagu wasiirka u magacaabo oo uu ku qoro guddiga uu is leeyahay waa ka shaqayn karaa oon ahayn guddiga uu kormeeraya ama kor joogteynaya wasaaradda uu asagu markaasi ka tirsan yahay sidoo kaleeto guddigan xeerosaadka iyo anshaxa wuxuu mas-uul ka yahay ilaalinta anshaxa golaha mudanayaal waxaa hay-adda halkan joogtaa waa hay-adda ugu sarraysa dalka ee madaxweynaha la xisaabtanta guddoomiyaha golaha shacabka la xisaabtanta ra-iisul wasaaraha la xisaabtanta xukuumaddana la xisaabtanta waxaa runtii aad ayaan darro ah oo nasiib darro ah inay xooghaynta baarlamaanku ka soo dacwoodaan messageka la soo diro oo loo soo diro xildhibaanada intaanu xildhibaanada qaarkoodba gaarin inuu social media yaalo waxay nagu tahay arrin aan sax ahayn arrin foolxumo ku ah mas-uuliyaddeeda ku ah qofku xaq buu u leeyahay waxa isagu u leeyahay inuu ku takrifasho laakiin aniga waxaan la leeyahay ama xildhibaanada la leeyihiin qofku ma takrifalan karo haddii xildhibaanada qaarkood dalka aysan joognin qaarkood baabuur cabdibalayaal ah iyo maxaa la yidhaha guruguruf wataan kuwaa jira soo lugeeya oo gurigooda ka soo baxa golaha markay soo aadaya in caalamka lagu faafiyo xildhibaankaas subaxii markuu soo shaqo tagaayay in la wada og yahay oo amnigiisa riski la geliyaa sax maaha xildhibaanada waxaan si sharaf leh oo xushmad leh uga codsanayna ammaano wey messageka soo diraan xoogayuu soo diro ammaano wey lagu ammaansaday qof kasta waa mas-uuliyad saaran inuu ilaaliyo ammaanadaas ilaaliyo haddii adiga ammaan aad haysatid xildhibaan walaalkaa ah oo kula mid ah yaan haysan ammaanka aad haysatid iyo protectionka adigu aad haysatid waa codsi aan soo jeedinayna golaha soo jeedinayna xildhibaanka un caadistana waxay noqon doontaa in lagala hadlo haddii ilaah yidhaahdo way sahlan tahay cid kasta oo soo gelisa social media in la ogaado cidda maxaa la yidhaahdaa arrintaas ka dambaynaysa waxaa jira akhlaaq baarlamaanku leeyahay xildhibaan kasta oo golaha ka tirsan waxaa laga soo doortay constituency waxaa soo doortay dad baa soo doortay siduu doonaga ku yimaado wuxuu matalaa dad buu matalaa meesha xildhibaanku dadka uu matalo ku muujinayo ma ahan inuu wiil yar gacanta qabto uu shaqo geeyo meel la raadiyo wasaarad la raadiyo ma aha meesha ku matalayo meesha uu ku matalayo waxay tahay meesha shuruuc dalka laga samaynayo sharciga maanta hor yaalla golayaasha hor yaalla qofku waxa ugu horeeya uu dadkiis ku matalaa waxay tahay inuu fiiriyo sharcigaana muxuu dhibi karaa
dadka anigu aan matalo muxuu ku samayn karaa meesha looga hadlaa golaha way xildhibaan kasta marka waxaa waajib ku ah haddii uu tabasho qabo iyo hadduu rabo inuu wax ka bedelo iyo hadduu xitaa guddoonka ruuxadiisa uu dhibaato ka qabo bannaanka in wax laga yidhaha macno samayn mayso waxa macno samaynaysa golaha taliyaha lagu xisaabtamo waxaan mar kale ayadana codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh inaan annagu aan bannaanka iska eedayno waxaa ka qurxoon inta gudaha isugu nimaano haddii xataa aan u baahanno inaan idaacadaha iska damino xataa xaqan u lehno inaan xisaabtanno guddoonka la xisaabtanno nafteeda la xisaabtanno aan is eedayno mas-uuliyad baana saaran shaqaana laga sugaaya waxaana laga rabaa qabaa shaqadiisa guddigiisina ka mid maahay oo kuma jiro guddiga la xisaabtamaayo oo ta u yeerta ee wax ka weydiinayaan kuma jiro xaqna waxaan u leeyahay sida guddigaas ula xisaabtamaya anaa ula xisaabtamaan xaq u leeyahay waxaan dareensanahay wasaaraddaas uu joogo inay ku shaqaynayso sharci darro ku shaqaynayso maxaa ii furan marka waxaa ii furan 10 xildhibaan oo saaxiibada inaan ku baraarujiyo iraahdo ila saxiixa mooshin aan u yeerno su'aalaha noocaas qabaa inaan wasiirka weydiiyo 10 xildhibaan soo jeedinaysa mooshinka waliba waa soo yarayn xeerasoo haddii u fiirsaan ra'iisul wasaaraha dalka haddii loo yeero markii hore waxaan noogu qornay 30 casho ku soo jawaabaya hadda waa soo yarayna 2 wiil baan ka dhignay maadaama uu yahay ra'iisul wasaaraha inta loo yeero qofku doonaba ahaadee su'aashii la raba lagu weydiiyo meeshaas lagu weydiiyo waxay goluhu xaq u leeyihiin wasiirka u hoggaansami waaya yeeritaankooda inay xilkiis dib eegis ku sameeyaan iyo xaq u leeyihiin intaasoo awood ah waxay ka fulaysaa maaha bannaanka gudaha golaha ka fulaysaa gudaha dhexdiisa ka fulaysaa mudane waxaa jira qof xildhibaan kasta saan sheegnay wuxuu xaq u leeyahay inuu xor u hadlo inuu wuxuu aaminsan yahay sheego laakiin xaq uma lahan inuu xildhibaan kale u xadgudbo xaq uma lahan xaq uma lahan inuu xildhibaan kale xasaanadiisa u xadgudbo xaq uma lahan waxaan haynaa guddi ahaan dacwooyin xildhibaano ay soo gudbiyeen oo sharaftooda iyo sumcaddooda lagu xadgudbo insha allah waana soo horkeeni doonaa golaha haddii ilaaha yiraahdo waxaa kaloo jira xildhibaano dacwad soo gudbiyey oo loogu xadgudbay meelo kaleeto oo ka baxsan maxaa la yidhaha golaha ka baxsan ama ha ahaadaan hay-adaha amniga ha ahaadaan ama ha ahaadaan hay-ado kaleeto oo ka baxsan ha ahaadaan ayadana insha allah iyadoo lawada og yahaan maxaa la yidhaahdaa golaha horkeenina mudanayaal waxaa sidoo kaleeto mas-uuliyad ay ka saaran tahay guddoonka iyo guddiga xasaanaddaba in la ilaaliyo xasaanadda xildhibaanka la ilaaliyo xildhibaan walba oo xildhibaanada golaha shacabka ka mid ah sida asaga waajib loogu leeyahay isna waajib u leeyahay oo xaq u leeyahay waxaan rabaa marka inaan maxaa la yidhaahdaa aan u caddeeyo xildhibaanada maanta guddoomiyaha golaha shacabka wuxuuna amray oo ayadoo maqlaayo daraad uu amray in la xaadiriyo liisaskii waxaa la gaaray boosishinkii ugu dambeeyey oo la gaari lahaa wax ku cusub maaha golayaasha waa soo martay golayaasha dhowr golay soo martay in la gaaro oo la ogeysiiyo constituency-gii qofkaas uu ka soo jeeday inaanay matalaad ku haysanin golaha shacabka ku dhexaysanin in la gaarsiiyo in la ganaaxo in la muujiyo mudanayaa xildhibaan baa wuxuu yimaadaa subax kasta 8:15 subaxna yimaada xildhibaanna asagoo xataa aan shaqo ku maqnayn oo iban dalka xataa aan ka maqnayn yuusan imaanin haddii la rabo guddoonka in lala xisaabtamo lagulama xisaabtami karo in kooranka la baajiyo waxaa sharci darro ah xildhibaan mas-uul ah oo mas-uuliyad qaran saaran oo xasaanad leh ama meedii inuu ka yidhaahdo ama meelo kale goobo kale ka yidhaahdo yaan baarlamaanka la imaan hayru sharci qofku asaga naftiisa wax xukumi karaa laakiin dadka uma jidayn karo wax hayru sharci uma jidayn karo xildhibaanada qaarkood waa isku waafaqi karaan inay wax qabaan oo ay problem qabaan oo ay problemka sheegtaan waxaa sidoo kale la mid ah golaha wasiirada waa xildhibaano markay golahan joogaan xildhibaano way wasiirka ka tirsan golaha wasiirada ka tirsan ee maalintaas u yimaada shaqo wasaaradeed golaha u yimaada fadhigiisu waa cayiman yahay meeshuu fadhiisanayo xildhibaan kaleeto wasiir ah wuxuu la darajo yahay markuu golahan soo galo wuxuu la darajo yahay xildhibaanada kaleeto waxaa aado ah oo golayaasha aada ugu badata maalinta xukuumad dan ka leedahay baarlamaanka in wasiiradooda yimaadaan waxaan horta runtii rabaa inaan golaha hortooda ugu mahad celiyo ra-iisul wasaaraha dalka
oo sameeyey xaadirad labaad in golaha wasiirada ugu dhex sameeyo golaha aad ugu mahadcelinahay laakiin waxaa dhaqan noqotay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu markay dan ka leeyihiin golaha in baarlamaanka warankiisa la buuxiyo maalintaas dan ka lahaynna aada moodid inaanay galahaba ka tirsanayn waa isu sheegnay maxaa la yidhaahdaa waxaan anaga ballan qaadaynaa inaan si cadaalad ah aan golaha ugu xildhibaanada aan ugu cadaalad furno qof baa wasiirah qof baa xildhibaan ah qof baan waxba ahayn midna aysan ahayn xildhibaan kasta markuu golahan joogo xasaanad baa u siman yahay waa laga yaabaa wasiiradu markay joogaan meelaha kale inay benefit dheeraada leeyihiin laakiin annaga waxaa naga go-an xildhibaan kasta oo raaci waaya maxaa la yidhaahdaa xeerusaadka golaha u yaala wixii loogu talagalaan haddii ilaah yidhaahdo aan soo gudbinaynaa guddoonka guddiga xeerusaadka waa la fariistay waxayna maxaa la yidhaahdaa ballan qaadeen inay kala shaqeeyaan sidii maxaa la yidhaha cadaaladdu ay tahay waxaa soo hartay qaabka fasaxyada oo golahu u qaadanay malaa'ig ma nin qofku xanuunsan karaa danuu yeelan karaa shaqaa ku imaan karta number one guddoomiyaha golaha shacabku ma fasixi karo xildhibaan aan guddoomiyaha guddigiisa soo fasixin waa number one fas wuxuu ka bilaabanayaa marka ugu horeysa guddoomiyaha guddiga ka mas-uulka ah yaa xildhibaanku weydiisanaya mar labaad ma haddana si fiican u caddaynaya xildhibaankii dan ku timaadoo raba fasax inuu qaato wuxuu ka soo bilaabayaa warqadda foomka wuxuu ka soo bilaabayaa guddoomiyaha guddigiisa oo aan soo saxiixinin habdhowraha iyo guddoomiyaha golaha shacabku ma saxiixi karaan markii uu ka soo qaato waxaa la soo marsiinaya habdhowruhu muxuu ilaalinayaa waxaa la yidhi guddoonku bishii waxay fasixi karaan 50 xildhibaan bay aan jirta waa soo yaraynay 30 xildhibaan baa laga dhigay bishii waxay fasixi karaan guddoonku 30 xildhibaan haddii 30 xildhibaan la fasaxay guddoomiyuhuna qof u soo saxiixay warqad habdhowruhu xaq u leeyahay guddoomiyaha la hadlayna ku yiraahdo guddoomiye waa buuxsamay timekii maxaa la yiraahdaa nambarkii loogu talagalay guddoomiyaha golaha shacabkuna ma saxiixi karo warqad aan intaas soo marinin maxaa la yiraahdaa guddoomiyihii guddiga soo marinin habdhowraha guddoomiyaha golaha shacabku saxiixi maayo waxay imaan karta xildhibaan baa maqan dalka dibadiisa ka maqan waxaa u suurtoobi weyse ama waa xanuunsaday ama shaqadii loo diraa ku dheeraatay wuxuu xaq u leeyahay guddoomiyihiisuna soo xaq u leeyahay wuxuu kale xaq u leeyahay inuu xogayaha golaha soo wacana xaq buu u leeyahay oo uu sheego yidhaha dhibaataas haysta markaas xogayuhu usoo gudbiyo maxaa la dhahaa guddigiisa usoo gudbiyo xildhibaankaasi oo la iska saaran haddii guddoomiyuhu golaha shacabka ay dhacdo inuu soo la hadlo oo uu u sheegto yidhaha ciladaasaa igu timid guddoomiyuhu xaq u leeyahay inuu soo gudbiyo guddigiisa guddoomiyihii u xilsaarnaa procedurkii sharcigaha la marsiiyo xildhibaan baa dadku waxay eedeeyaan oo sheegaan xildhibaanana fasaxaa la siiyaa iska maqan yihiin xildhibaanana waxaa lagu adkeynayaa golaha in dhex fadhiyaan sax maaha in la ogaado taas in la ogaadaan rabnaa waxaa sax ah xildhibaanku markuu rabo fasax inuu qaato inuu dariiqadaas soo maro xildhibaanka aan dariiqadaas soo marinin liiskiisa marka la soo gudbiyey absan buu noogu qornaanaya inuu maqnaado waa qaabka fasaxyada waxaa soo hartay qaabka guddiyada guddi waxaa arkaysaa maanta xildhibaan guddigii xeerusaadka la fadhiyo ka tirsan beritoolana maxaa la yidhahdaa guddiga maaliyadda la fadhiyo ayaduna sax maaha xildhibaanka guddigaa waxaa ku soo qoray guddoomiyaha golaha shacabka saxiix buu ku soo baxay maalintii ugu horreysay baarlamaanka guddida loo qiiminayay yuu saxiix ku soo baxay xildhibaanku hadduu inta dacwoodo oo dhibaato kala sheegto oo siyaabo kale u cabsado yidhaha ani guddi hebelaan qabsaday xaggaan raba ku qanciyo guddoomiyaha ku qanciyo guddoomiyaha waxaa laga rabaa guddigu ku qornaa inuu usoo qoro warqad oo yidhaahdo xildhibaankaasi waxaan u wareejiyey guddigaas guddiga loo wareejiyan warqad inuu qoraa laga rabaa oo aan maxaa la yidhaahdaa aysan noqonin guddoomiyiinta habeenka shaah silcabaan in la yidhahdo hebel xaggaa lagu wareejiyey iyo hebel xaggaa la aado ama xildhibaanku go-aan iska qaato yidhahdo ani guddigaana igala qorxoono maxaa la yidhaahdaa aan maanta u wareegayo xildhibaan kasta oo golaha ka tirsan waa waajib maxaa la yidhaahdaa inuu ka mid ahaado guddiyada guddi ka mid ah guddiga asagoo ku qanacsan yahay baa u ah priority u ah haddii loo waayo guddiga ku qanacsan yahay guddiga labaad second abuniyinka asagoo qortay yaa lagu qoray haddii kaa laga waayo kii saddexaad qortay waxaad ogsoontihiin marka golaha bilaabanayay oo fadhi ugu horreey bilaabanayay foom baa la iska buuxiyey foomkaasi oo maxaa la dhahaa lagu sheegayey
maxaa la yidhaahdaa inuu juus garaysto xildhibaanada waa laga yaaba saddexdiiba qof juus garaystay inaan ohelin laakiin waa privilege uu guddoonku leeyahay inuu liiska soo saaro maxaa la yidhaahdaa xildhibaano badan waxaa jira aan sidaa ku qanacsayn laakiin xeerusafkiga sidaasaa maxaa la yidhaahdaa noogu taala ugu dambaystii mudanayaal waxaan rabaa xeerusaadkii baarlamaankii 11 wuxuu dhaqan galay 30kii bishii 12 2023 kii ka horreeyey oo kaas ah wuxuu baarlamaankii 10aad u ansixiyey 30kii December 2018 afar sano oo kumulida u dhaxaysa xeerusaadku hindi sharciyeed maaha xeerusaadku waa sharci baarlamaanku leeyahay golaha shacabku uu leeyahay baarlamaankii 9aad qodobadii la qoraa ku yaala waxaa ku yaala baarlamaankii 10aad wax ka bedelkii lagu sameeyey waxaa kana ku soo baxaya baarlamaankii 10aad wax ka bedelkii lagu sameeyey waxa ugu badan oo maanta baarlamaanka iyagu la gaala dhacsanayo oo culays ugu badan ku haya waxay tahay cidii la doonaba eedaha la saaro laakiin waxa ugu badan oo maanta aan la dhaqaaqi la'anahay oo guddoonka ula xisaabtami la'anahay oo xukuumadda ula xisaabtami la'anahay waa kooram la'aan wax la aqbali kara maaha in maxaa la yidhaahdaa daqiiqda loogu sheekeeyo la yidhaahdo xildhibaanadii shaqadooda sooma gudan waxaan rabaa marka ugu dambaysa codsiga ugu dambeeya inaan xildhibaanada usoo jeediyo waxaa la yidhaahdaa inay muhiim noo tahay inaan golahaygan ka nimaano ku xisaabtano inaan guddoonka kula xisaabtano inaan dhexdeeda kula xisaabtano inaan xukuumadda kula xisaabtano marka qaarkood waxaa arkaysaa biiyaal meelaha ku arkayay aqalka sare oo wasiiro la xisaabtamayo waa shaqaynaya laakiin aqalkii awoodda iska lahaa wasiirka la xisaabtamayay xilka ka qaadi karay maxaa la yidhaahdaa ganaaxi kara golahan way hal weli waa yaryihiin guddiyo yar baa maxaa la yidhaha wasiiro u yaran wasiirada in laskaga yeertaa macno samayn maysa waxa macno samaynaya waxay tahay in lagula ajandihii shuruucdii lagu xisaabtami lahaa inaan baas garayno oo aan gudbino yaana laga rabaa waxaana laga rabaa maalin kasta inaan guddoonka canaanano oo weydiino xukuumadda soo gudbiso xukuumaddu waxay leedahay waxaan diyaarinay naga diyaarsan 50 sharci 60 sharci waa naga diyaarsan golihii baan diyaar ahayn bilxaqiiqa saxna maaha annagaana laga rabaa marka inaan idhaahno waxaa linka rabaa shuruucdii inaan keeno waxaan rabaa inaan kala iskash garayno guddoonka iyo guddoomiyaasha guddiyada muddooyinka ay haysanayaan guddiyadu sharciga loo soo gudbiyo sharci baa halkaan la keenay waa la akhriyey akhrinta koowaad buu galay waa laga dooday waxaa loo gudbiyey guddi 2 bilood muu haysanaya bil muu haysanaya sanad muu haysanaya saacado muu haysanaya waxaan u baahannahay inaan ka heshiino guddoomiyaasha guddiyada oo guddi kasta huba oo maxaa la yidhaahdaa xubnaha ka tirsan guddigiisa kaasoo discuss karay waxaan rabaa mudanayaa waxaa mar walba arkaysaan buug waxaa ku qoran guddiga joogtada wuxuu samaynaya ajendaha golaha ayuu samaynaya laakiin waxaad moodaa fakrooyin baa laga boodaya guddoomiyaha guddigaasi keligiis xaq uma laha inuu ajendaha sameeyo waxaa laga rabaa guddigiisa inuu la fadhiisto markooda oo yidhaahdo waxyaa shuruucda noocaana taala yaan soo hormarinaynaa maxay la tahay ra'yiga marka ku hadlaya kiisa inuu ku hadlo lama rabo ka guddigiisa laga rabo inuu ku hadlo oo la yimaado waxaa laga yaaba xildhibaano badan inay iskaba warqabininba waxa guddoomiyahooda uu guddiga joogtada ka akrinayo waxaa marka waajib ah inuu guddoomiyaha guddigu wax kasta kala soo tashado guddigiisa inta aanu maxaa la yidhaahdaa guddiga joogtada soo dhex fadhiisan markaasaa guddiga joogtada macno yeelanayo oo wuxuu xambaarsan yahay baarlamaanka inuu xambaarsan yahay waxaa sidoo kaleeto ayaduna maxaa la yidhaahdaa uu macno yeelanayaa golahaygu macno yeelanaya oo aan wasiirada la xisaabtami karna baarlamaanka shaqayso waxaa macno u yeelanaya maxaa la yidhaahdaa golahaygu oo xisaabtiisa macno yeelanaya marka anagu joogno ugu dambaysta waxaan rabaa inaan kusoo gunaanido waa u mahad celinaya guddoomiyaha golaha iyo xildhibaanada sharafta leh oo maxaa la yidhaahdaa golaha soo xaadiray ujeedadu waxay inaan isu kaleer garayno maanta waxay inaan keeno liisaska annagaa codsanay inaan marka ugu horeysa aan xildhibaanada awareness siino waa su-aal waa imaanaya waxaan rabaa marka inaan maxaa la yidhaha saas ahayd inaan awareness bixino
aad iyo aad uga mahad celinaya xildhibaanada sharafta leh waa mahadsantihiin igiis maaha waa xeer hoosaadkii horeyn inta badan xildhibaanadii naga horreeyey baarlamaankii naga horreeyey soo diyaariyey golihii shacbiga naga horreeyey soo diyaariyeen anaguna hadda maaragtay intaan ku kordhinay waxaan ka bedelnay kiibuu noo akrinayey sida la sheegay waa run hay-addeeni waa hay-adda waajibaadkeed uu yahay in dalka oo dhan hay-addii ka qaldanta shuruucda iyo nidaamka dalka ka qaldanta ama shuruucda ku gefta hay-addii toosin lahayd baanu nahay marka sidaa daraaddeed in anagu maaragtay aan ku bilaabno istoosinteena aad iyo aad maaragtay arrin fiican aada u wanaagsan weeye marka waxaan rabaa inaan idinku daro daraad waxaa jirta hindisa sharciyeedkii maaliyadda ku saabsanaa cunaqabateynta cayiman hindisa sharciyeedka ahaa cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman daraad intii la qeybiyey arrintii koowaad martay ayaa waxaa dhacday qaladaad yaraa soo dhexgalay arrintii koowaadna maaragtay waa martay marka xogayaha waxaa noo soo gudbiyey daraad markii dambe waa la ogaaday xukuumadda xaggeedii ma ahayn dhinaceeni xafiisyadeeda qaladaadka ka yimid waxay isku qaldeen mid la celiyey iyo midii saxda ahaa hadda waa soo dhammaystireen saakii ajendaha laguma soo darin laakiin maadaama arrintii koowaad maray hadda in loo qiibay xildhibaanada inay qaataan taasna waa idinku kordhinayaa qodobkii ahaa xaadirada maaragtay fadhiyada ahaa aniga waxaan soo jeedinayaa maanta maadaama qodobo dheerna loo akriyey guddoomiyaha guddiga anshax xildhibaanadana si aad u sharaf badan ay usoo hadleen waxaan isleeyahay xildhibaano waxaa jira siduu baarlamaanka u furmay soo hadlinin oo fasaxna ku maqnayn waa iska jiraan hase ahaatee laakiin maanta aniga waxaan qabaa in dib loo dhigo oo maaragtay ajenda ka soo diyaariyaan maaragtay dadkaan imaanaynin oo iska maqan yacni iyo liisaskooda inaan u dayno habdhowraha iyo maaragtay idda shaqada leh marka iibintaan aan ku darsano de habdhowraha haddaa wuxuu maaragtay haddii wax ku daraayo oo uu xasuusin yahay oo nidaamka ku saabsan waa ku dari karaa laakiin maadaama guddoomiyaha aada ugu fogaaday war dheer ma siinayno habdhowr haddii adi laba kelima dhahaysa waan ku siinaynaa marka waxaan rabaa kaas in la qiibiyo haddana ti iyo yaro uu hadlaayo maaragtay habdhowraha intaas asiin ra'yigiis ku daraayo wayna ku dhow waad mahadsan tahay iyo xubnaha sharaftalada waa mahadsan yahay guddoomiyaha guddiga xeerasaadka inkastoo uu nagu dulaqday xeerasaadku nagu dheereeyey haddana uu mahadsan yahay intaa kisakow mudane guddoomiya waa mahadsan tahay horta xeerasaadku xildhibaanka maqnaanshihiisa iyo joogidiisa waxaa jira hal arrin oo muhiim u ah mar kastoo xildhibaanku maqnaado waxaa jira bishu markay dhammaato waxaan siinhaynaa bakshaad xidhan oo inta maalmoodu yimid iyo inta uu maqnaa ah haddii qofku muddo cayiman marka uu duruufta kolkii la siiyo isagayna u gooni tahay qof aan isaga ahayna xilliga koobaad lama wadaagayna isagoon baan siinaynaa haddii qofka marka isaga la siiyey uu dib isu xisaabin waayo waad garan kartaan waxa ka imaanayo waxay noqonaysaa in inta hadda guddoomiyuu sheegay inta baarlamaanku shaqaynayaba iska maqnayd waxaa jira odayaal iska maqnaa iyo dad aan imaninba kuwaasna waxaan rabnaa inaan si jadwalaysan usoo diyaarno way noo diyaarsan yihiin xilligii ajendaha uu guddoomiyuhu soo ogolaado inaan ku darno arrinta ah fasaxa hore wuxuu ahaa 50 xildhibaan markay gaadhaan in la joojiyo annagu waxaanu u dirnaa qofka codsiga inuu isagu soo saxeexo kadibna guddoomiyaha guddiga uu ku jiraa soo saxeexo markii annaga naloo keena annaga wuxuu noqonayaa inuu qofkani istaahilo fasaxa iyo inuuna istaahilin tirada jirta xaalado gaara jiro xaalad istitnaayo wixii ka soo hadhay qofkii isbitaal galay ama waxaas oo kaleeto galay arrintaa waxaan u gudbinaa guddoomiyaha guddigii ay qusaysayna waxaan u marsiinaa broseska sidii ku habboonayd baan u wada marsiinaa sidaas ayaa marka qofka lagu fasaxaa meel kaleeto ka yimaada fasaxu maha waan ognahay dadka inay madax yihiin inay xaalado leeyihiin inay duruufo iman hayaan laakiin haddana joogitaanka iyo shaqada si u wanaagsanaata ayaa adadkeyntana u timid waayo maanta waxaad ogtihiin kuraastoo dhan way buuxaan laakiin
daraad culays badan baana haystay ilaa dadka qaarkood ay yidhaahdaan lama joogo midda kale dadku intay saxeexaan bay kolkaaba baxaan taasna arrinta keliyanu ka dan lahayn waxay ahayd in liisada la yeedhiyo qofka xildhibaankiina uu dareemi karaa kolkii golaha la yeedhiyo magaciisa la waayo matalaadiisi iyo dadkii uu matalayay inay waxoogaa xanaf iyo culaysa ku reebaysa marka si wada jira inaan isula qaadno marnana ma dhacayso bareshar gaara inay ku timaado fasaxa laakiin sida ugu habboon baan marsiinaynaa waa mudane guddoomiye aad baad mahadsantahay xubnaha sharafta leh xildhibaan maare waa arkayay xildhibaan cabdiraxmaan iyo xasan asigana fool gacanta taagay marka xildhibaan shariif marka wixii ku saabsan ee hoosadkeena ku qoran yahay hadda su-aal nagama baahna laakiin wixii maaragtay oo qof ra'yigiisa ah oo ama isleeyahay aman waafaqsanayn ujeeddada la leeyahayna waa inaan istoosino baarlamaanka 10aad u noqdo baarlamaanka 12aad u noqdo baarlamaan wax la dareemi karo dalka toosidis ka bedel inaan noqonaa ujeeddadeena tahay qof la baaqin yahay ma jiro marka sidaan u fahanno inaan maaragtay aan kala faa'iidaysano wixii aqoonaan aad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن القدومية xildhibaanada sharafta leh waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoomiye intaa tiri ayaan runtii aniguna aan sii taakiidinaya marka horeysa waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha guddiga anshaxa iyo baarlamaanka oo runtii halkan xusuusin fiican ku sameeyey qodobo muhiima oo xildhibaanadu inay ogaadaan ay tahay si gaara u ogaadaan isaga iyo guddoonkii soo alifayba waa u mahad celinaynaa marka sharcigu shaqeeyo bini aadanka oo dhan wuxuu u baahan yahay sharcigu inuu shaqeeyo marka anigu xataa maanta ma qabo inaa xaadirinta joojisaan sababtoo ah baarlamaankani inuu shaqeeyo weeyo sidaa maanta uu u yimid mar walba u yimaado haddaad marka marna soo qaadaan marna debcisaan annakuna waa debcinaynaa marka horta anigu waxaan taakiidinayaa aada iyo aada u ammaanayaa in maanta baarlamaanku isi saxay oo weliba mas-uuliyadda laga rabana isku dhiirigeliyey aada iyo aad baan taa idinku ammaanaya guddoonka oo dhan guddoomiye annaku marka maadaama baarlamaanku isu saxayo annaguna dhibaataanu qabnaa dhibaatadaanu qabnaa waxa weeye waxbaa noo keenaysaa no sharci baa noo keenaysaa waa ka doodaynaa waxbaan soo jeedinaynaa waxa yaga cid noo weelaysa oo noogu soo darta oo nagala dooda oo ma haysano hadhow marka dambe wixii doodii iska dhammaato oo isaga ekaato maanta oo dhan halka waxay ila tahay oo iska shimbirayo oo heesa ay u ekaato waxaa doontaan baad markaa kadib la qoraa oo lama tixgeliyo inta badan dooda ay baarlamaanku soo jeediyaan adduunka kale xisbiyuu leeyahay xisbi wixii uu keenana cidi ama waa laga qanciyaa waa lagala doodaa waa lala dhammaystaa ama waa loogu dara oo si aan shaki lahayn baa loogu dara tusaale waxaan usoo qaadanaya xeer hoosaadkii ugu dambeeyey oo arrimo badan aan soo jeedin oo xataa kooramka talooyin laga soo jeediyey si kooramku marmarka qaarkood khafiif inuu ku noqdo for example marka haddeer oo kale sharci la qaybinayo xooggaas oo dhan lama gelin karo oo maanta oo dhan xildhibaanada aad arkaysaana duruufaha la sheegayo soo maraya waxay u baahan yihiin in xataa haddii aan markaa wasiir imaana in loo diro fariino la dhaho sharciga waxaad ka qaadan kartaa halkaas 24 saacna waxay ka bilaabanaysaa saacadda hadda la diray bay ka bilaabanaysaa wuu ku diyaarsan yahay marka ama kooram intaa ka khafiifsan buu ku furmi karaa marka sharcigii iyadoo aan wixii aanu hadda cabdilmajiid wuxuu keeni doonaa inuu garan maayo anigu contribution badan baa soo jeediyey oo wada muhiim ahaa bal markuu soo celiyaan arkaynaa wixii uu ku daray wixii halkaa laga sheegay xeer hoosaadkii waan ka hadlayaa ayaan arkayaa wixii uu ku daray iyo wixii uu ka diiday waayo wax discussion igala galay ma jiro waxa waa kaa diiday waxaasna waa kaa yeelay hadda inuu wax iska keeno ma ka yeeli doono okay sidoo kale sharciga markii la ansixiyona looma soo celiyo oo wixii oo saxa waxaanu haysanaa daraafkii koowaad waxa laga yaabaa sharcigaa maanta inaanu kii hore uun haysano oo aan naloo soo celin hadda maaliyaddii baan sugaynaa marka maadaama baarlamaanku isi saxayo bal annagu waxaan doonaynaa guddoonku sida uu doodayada iyo soo jeedintayada u qaabaynayo noogala heshiinayo wixii wax anfaco sharciga ugu darayo inaad noo sheegtaan aniga intaasa usoo kaco waraxmatullaahi wabarakaatu guddoonka xildhibaanada sharafta leh guddiga qiimaha badan ee xeer hoosaadka iyo anshaxa
anigu niyo sideedaba dareen baan iska qabaa markastaba guddoomiye lacag baa meesha timid in la jarayo habsika lacagtaa laga jaray xildhibaanka 5 maalmood dhaqan xaggee aadayleen 100 baa maalmo bad laga qaaday meel aad ma qaan dalka sarga bal lacagtaa uu sheegay 5 maalmood la jarayo ma guddiyada dib loogu celinayaa ma xaggee aadaysa guddoomiyaha xirfad kaas weydiinaya waa qodob qodobka labaad waxaan taakiidinayaa guddoomiyaha sharafta leh iyo guddoonkiisaba iyo guddiga joogtada runtii sharci baa laga dooday oo wax lagu daray waxna laga dhimay finaale waa la codeeyey sharcigaas la codeeyey wax lagu daray wax dib baarlamaanka looma keeno oo officially sharciga u dambeeyey aan ansixinay ah oo qodobadii xataa laisku lafaruugay oo qaar lagu daray laga dhimay finaalihii soo dhammaaday madbacadda la geeyey lasoo daadacay wasaaraddii keentay ama xildhibaanku xaq buu u leeyahay 250 fadhila waxaan kula xisaabtamo waa qaamada sharciga aan ansiximo ugu soo noqonay qodobkii aan ansixiyey iyo qodobkii lagu daray sharciga uma soo noqon waxaan codsan lahaa finaal markuu sharcigu gaadho cod buu galaa waa la ansixiyaa xildhibaan walba wixii ku daray qodobkii marka wasaaraddii sharciga finaalka loo ansixiyey qaadatay laakiin aniga guddi ahaan ma hayo ama xildhibaanadu ma hayaan sharciga finaalaha marka waxaa laga yaabaa qodob oo waa hor laga bedelay inaan iskaga dhiganahay oon leeyahay war shaqaalaha caynka ku qorta horta waa sharci anigu aan soo jeedin xildhibaanadu ay leeyihiin waa inuu shahaado haystaa waa inuu kaas leeyahay waa inuu abdiiska leeyahay waa inuu aqoon leeyahay ma waa lagu soo darinba marka wasiirkii iyo wasaaraddiisa markaan ula tagno guddi ahaan qodobkaan ka hadlay ma ku qorna laakiin markii la hadlayaan af ka sheegay kii aan ansixiyeyna ma aha waa mid kale ayuu haystaa anna waxaan haystaa kii waxa laga bedelay marka guddoomiyaada waxaan codsan lahaa finaalaha in naloo keeno sharciga waxa laga bedelo dhan markii la dhamaado gacanta la geliyo in dibna lagu qaybiyo lasoo daabaco waana mahadsantii guddoomiye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan usoo istaagay wixii aan ka hadli lahaa maareyaa ka hadlay marka waan ayeeday laakiin qodobka ii dheer wuxuu yahay oon rabaa inaan kala hadlo guddoonka maalin dhexdaasa waxaan ka hadalnay xasaniyadda xildhibaanada waxaad u xisaartay guddoomiye guddigii shaqada ku lahaa guddigii wuxuu keenay soo jeedintiisii arrintaas waxaad umanaysaa meeshaas inay ku dhammaatay oo wax ka dambeeyo laga qaatay aysan jirin marka eedana xildhibaanada iskale mise guddoonkaa iskale waa arrin muhiim ah kow laba ka fogey anugu dadka gadaale ma maqlaan haddii afka la geliyo guddoomiye maanka ugu soo celiyaa weli guddoomiye waxaan ka hadlay arrintii la xiriirtay maalin dhaweyto xisaaniyadda xildhibaanada la soo jeediyey in loo yeero hay-adaha amniga si loogula xisaabtamo dhibaatada haysato xildhibaanada arrintaas ayada ah waxaad u xilsaartay oo qoraal rasmiha aad u samaysay guddiyadii arrintaas shaqada ku lahaa guddiyadii arrintaas waa ka soo jawaabeen go-aan bay soo gaareen arrinta weli meesheediiba taaganta marka eeddo ma dhinacaaga mase weli guddigaa wax ku dhiman yihiin taas inaad noo caddayso waa rabaa arrinta labaad oo intaas ii soo raacda waxay tahay xorhoosaadka laga hadlaayey xorhoosaadka markii aan ansixinayno waxaan ka hadalnay qodob inaan isu dultaagno inta noo dhimo micnaheeda 22 qodob aan ansixinay keliya ma ahayn waxay ahayd qodob walba inaanu ka doodno oon ka hadalno dhibaatooyinkiisana khaaska ahna aan ka hadalno duruufuhu waa isbedbedelaan had iyo jeer xeerhoosaadku wuxuu la socdaa duruufaha dalka uu marka iyadaha marahayo sidaas darteed ayadana waxaad u malaysaa in la gudbay albaabkana laga xirtay 3 dood baan qabaa waa soo jeediyey doodayda yaa qora horta mise waxaan ahay nin inta halkan iska yimaada sidii looda iska ciyoo kale waa inuu jiraa qof qorahayo nadariyadda uu xildhibaanku qabo
sax iyo khalad wuxuu qabo sharci hindiseed baa la soo jeediyey waxaa laga yaabaa inaanan waafaqsanayn qaynuuniyan iyo caqliyanba lagama hadlo hadda waxaad samaysaan waxaad alle waxaad rabtiin adinkiiyo wasaaraddii iyo wixii o dhan baa isku soo baxay xildhibaanada doodooda meel baa la dhigaa waxaad rabtiinna waad samayseen taas waa guddoonkaan leeyahay eedaas waxaa iska le guddoonka sida darteed clarification caddaan ahaan u baahannahay wixii halkan looga doodo ama xildhibaanka inuu la yimaado exactly fikirkiisa iyo aragtidiisa in la qoro isla markaasna lagu faafiyo loo keeno xildhibaanada intooda kale waana mahadsantihin asalaamu calaykum xildhibaan xaggaas baarlamaankii tobanaad baa ku yaalay shuruud inta meesha ku akrinayna waa ku jiray cid lacag doonaysa ma laha waxaa loola jeedaa xildhibaanka inuu shaqeeyo qofku waajibaadkiisa guud waa iqaabta uu maraya ka mid tahay loola jeeda horta waxaan rabnaa in xildhibaana taas ku dhicinin tan guddiga hadda shariifka ka hadlay xildhibaan shariif darhaad guddi aan u saarnay waa run waad ogtihiin guddigii talay soo jeediyeen tala qurxoon ay soo qoreen taladooda intaan la keenay annagoo barnaamijkii ku jiro guddiga dhexdiisa antaas ku qabsaday anagu arrintaas ma ogeyn anigu ma ogeyn waxaan idhi xildhibaanada sharafta leh saas ma aha waxaad yeelaysiin haddii wax idin dhamman yihiin guddigiini jawaab fiican a idinka sugaynay haddaad intaas ku qabsanin bal isku noqdaa oo waxaad tidhaahdaan barnaamijku adigu isku raacsan tihiin noo keena saasay ku maqan yihiin maahayna lama diidin taasna saasaad u ogaanaysin marka keliya waxaan rabaa ujeedkeena horta ma aha yacni ciqaab soo kororti ma aha keliya aan istoosino waajibaadka aan leenahay aan gudano saxabaha ilaalino heer hoosaadka aan ilaalino waay taas mid dacwo badan hadda laga furraa uma aha laakiin heer hoosaadkana qur'aan wasiirkan meeshuu ka akrinayay hadda waa la soo saxay oo kii rasmiga ahaa hadda la qeybiyey akhriska koowaad lagu maray laakiinse wasiirku wuxuu sheegay in lala akrin doono sharcigii baarlamaanka sagaalaad uu ansixiyey ee ahaa mari laundry marka sharcigi lala akrin lahaa maadaama annaga guddiga maaliyaddan aan nahay sharcigi lala akrin lahaa in asna lasoo daawaco si ay u fahmaan waayo kanoo kale wuxuu noqonayaa xeer ku lifaaqan xeerkii hore ku lifaaqan buu noqonayaa waana soo socdaan waana isaameynayaan marka markii hore aan bilaabeynana doodiisu waxay ahayd in sharcigaasi sharcigan ay iswaafaqayaan in laisla akriyana ay tahay hore in loo ansixiyey marka xeerkaas xeerka lagu lifaaqi lahaa in lala akrin lahaa in la keeno taas waa qodobka labaad mudane guddoomiye xeer hoosaadka meesha laga akriyey iyo waqtiyada tiro badan ee la sheegay shuruuc muhiim u ah dalka ayaa taalla oo markii hadda annaga maaliyadda la ansixinayeyna meeshan laga sheegay oo shuruuc muhiimna u ah deen cafiska sharcigana marka hore wuxuu ka bilowdaa golaha shacabka markii akhriska koowaad iyo labaad iyo saddexaad uu maruu ansixiyo wuxuu aadayaa aqalka sare iyagana sidaas oo kale wuu soo laabanayaa kadibna aqalka kusoo laabay kadibna madaxweynuhu aadi kadibna waa la saxiixi faahfaahinta rasmiga lagu soo saaraya waktigana wuu socdaa processkan dheer ee aan kala caddayn timetable-ka aan lahayn maalmaha aan lahayn saacadaha aan lahayn shuruucdaas waxaan ka cabsanaynaa muhiimka u ah waddanka iyo maalgeshigiisa iyo deen cafiskiisa iyo amnigiisaba in waktigu iska dhaco ida waxba la ansixin golaha shacabka ay ka gudbinba marka in timetable inta loo sameeyo oo la jadwaleeyo oo la xiliyeeyo oo baryada dadkiisa u kala muhiimsan yihin loo soo kala horumariyo oo markii loo dhiibo guddiga intuu haysanayo wasaaradda akhriska koowaad iyo labaad iyo saddexaadba waktiga la cayimo waa muhiim haddii kale kan fadhiga wuu naga xirmayaa iyadoo hal sharci una ansixin golaha shacabka arrintaas waxay u baahan tahay mudane guddoomiye iyo guddiga xiroosaadka oo dib u eegis lagu sameeyo waa mahadsantihiin xildhibaanada dhan gacantay wada taageen okay waa ku siinaya horta hal qodob intaan ilooyin baan rabaa guddoomiyaha guddiga waan siinayna point of order kaasi aan ku horumarinaynaa shalay guddiga joogtadana waa codsadeen qodobkan oo maaragtay hindisa sharciyaadka maaliyadda iyo naqabateynta cayiman iyo sharcigii lacag dhigidda maaragtay shalay waa codsadeen kaas hore loo ansixiyey laakiin hadda xogeyaha waxaan faraynaa iyo dhammaan xogeynta waxaan faraynaa in maaragtay maadaama qodob badan ku yaalaan qodobkaasi waafaqsan ay ku taalo yani kaas akrin iyo ansixin noogama baahna laakiin waa la keenaya waa loo qiiminaya si uu arkaan qodobkii xagga tilmaamaba si qodobkaas loo arko marka xogeyaha waxaan leenahay ha la badiyo xildhibaanada ha loo qiimiyo si maaragtay qodob kastoo loo tilmaamo meesha ugu fiirsadaan aadaad umahadsantihiin
gudoomiye waa mahadsantahay waxaan soo istaagay laba qodob inaan ka hadlo xildhibaanada cusub maareeya cusub xildhibaan kasta oo golaha jooga wuxuu xaq u leeyahay inuu fikirkiisa dhiibto marka sharci la samaynayo laakiin sharcigu wuxuu ku dhammaadaa marka u dambeeya golahu ansixiyo gacanta u taagan inuu ku dhammaadaa waxaa laga yaabaa aniga 5 qodob oo soo jeediyey sidaan u soo jeediyaan loo qaadanin waxaa laga yaabaa kuwa anigu aan soo jeedin sidaan u soo jeediyaan loo qaato laakiin aqlabiyadda golaha ay ku ansaxdaa taasaan rabaa waxaan kaloo rabaa inuu sheego shariif uu sheegay qodobka 112 ee xeerosaadka golaha shacabku wuxuu sheegayaa qaabka xeerosaadka looga bedelayo maalin kastaa la bedeli karaa saacad kastaa la bedeli karaa wuxuu u baahan yahay procedurekaasi qodobkaas sheegaya in loo soo maro waxaa soo haray ninka la yidhaahdo irkaasi wuxuu sheegay lacagta gaaraysa qodobka 23aad faqradiisa 18aad ku taala meesha ay samaasantii iyo xildhibaanada sharafta leh halwadeennada baarlamaanka waxaan u soo kacay sixid yar oo ku saabsan qaabka sharciyadu u imanayaan baarlamaanka gudihiisa waxaan horta maanta mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa guddoonka baarlamaanka oo yeelay taladii ahayd xeerku intaanu noo iman in lagu soo lifaaqyadii saxda ahaa iyo broceskii uu soo maray xeerkani dowladnimadu sideedaba xildhibaano waa systems iyo processes isdaba socda processku hadduu inaga khaldamana ama aynaan ogeyn halkuu ka soo bilaabmay iyo halkuu ku dhammaanayo iyada lafteedu waa dhibaato guddoonka waxaan ugu baaqayaa inay saxaan nidaamka sharciyada loogu soo gudbinayo baarlamaanka waxaa maanta inoo hor yaallaa 3 xeer oo hindisa sharciyadu laynoo soo gudbiyey based on my inta yaran ka aqaano qaabka iyo processka uu maro sharcigu waa wasaaraddii aasaastay wasaaradda cadaaladda garyaqaanka guud golaha wasiirada iyo inuu baarlamaanka yimaado eventually 3 xeer laynoo soo gudbiyey mid wuu dhammaystiran yahay oo waa xeerka hindisa sharciyeedka aqoonsiga diiwaangelinta dadweynaha waxaa ku lifaaqan dhammaan processkii uu soo maray ilaa garyaqaanka guud labada xeere midna maaliyaddu soo gudbisay midna wasaaradda amnigu soo gudbisay tala soo jeedintii ama tusaalihii garyaqaanka guud iyo wasaaradda cadaaladda midna kuma lifaaqo waxaan inkastoo ay tahay hubintaas inay hubiyaan golaha wasiiradu intaanay u soo baasgareen xeerkan haddana waa shaqo u taallaa guddoonka baarlamaanka qaybtooda sharciyada inay dhammaantood noogu soo lifaaqaan xaashadaha muhiimka u ah sharcigan intaanu baarlamaanka soo gaarin waa idin mahadinaya لبان عبد الله عرب الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها يفرقينك وما سنتين حلوانا هذا شرفت له وإذن سلامة يا دمانتين حروساتك أنك الله يعني حروساتك قدوميها وديلا دو قارنا هنقول رقمه قارني هنقول رقمين قارنا هنقول رقمه قارني هنقول رقمين هذا بس عنيس هرنا أدوك قصي زاجرت حروساتك عقود تالا 12 بركة أما 6 ساعة بر صلاة دور الله شركة رواتك ودا مجوجنيس قد يدا سربنا مركا إن وحلقة قبته ما أنت بقول رئيس 6 ساعة بر دنيك تكون أسيء وتالا لكن شركة اللحن سألته حواي أضاء قرآن صلاة هذه سوا خدافتي وحلقة وإن قعن لك waxaa kaloo daliila annagoo salaad duhur jirno ra'iisul wasaare meesha lagu riday waa soo tukanay salaadii aanoo soo noqon ra'iisul wasaare baa la ridayba hadii waxaas wax soconaya ma gudoomiye marka aniga waxaan soo jeedinayaa haddaanan sharcigaas kulligiisa la wada qaato haddii kale ciddii soo daalaan la garaaci karin ciddii maqnaataan lacag laga jiri karin udkhulu fi silmi kaafatan waxaana hala wada qaato أما لا ولا ترى لكن وحرمنا كنا قبينا وحرمنا وكتجينا عند مسعود وما زلت السلام عليكم. بين السيفين تقطع وعن السينين لكن وما كنت عندي إما عودة شيء سواقو ما لنا يا مدن قدومية مدن يال
siduu walaalkeen cabdisamed noogu akriyay si faahfaahsan waaye laakiin la jiifyaana bannaan ayaa meeshaan ka jirta baarlamaanka tabasho badan oo badan ayuu qabyaa wuxuuna ka qabyaa waa guddoonka qaabka ay wax u maamulayaan sababtoo ah tusaale yar baan idin sheegayaa xildhibaanka baarlamaanka dhexdiisa wuu ka bilaabi karaa mooshin uu sharci ku curinaayo ama uu ku diidaayo oo muxuu ahay ajandihiisa wax looga bedelayo halkan waxaad la socotiin aniga daahir ah xeer hoosaadka 21 qodob markii muxuu ahay la qoraayay inaan mooshin keenay aan u dhiibay xogeeyaha guddoomiyaha uu sii dhiibi maanta meel isku sugan yahay iyo meel isku dambeeyo wallaahi inaan garanayn markaan oon guddoomiyaha arka waa soo xasuustaa oo keliya marka la jiifiyaana bannaan waa marka mar haddii la jiifiyaa bannaan ay sheegada tahay walaalkii carab siduu u sheegi waaye dastuurka iyo xeer hoosaadka markaas qofka intii asaga ka anfacda bes ha ka qaata sharci noqon mayso mudane guddoomiye soo xaadiridda baarlamaanka waxyaabaha dhaawacaya kalsooni darrada laga qabo guddoonka waaye dhabtii sidaas waa waxaan kaa codsanayaa sharciyada aad qabanaysiin oo aad muxuu ahaay baarlamaankaad rabtiin inaad ka qabatiin idinka ma yihiin dad umiyiinna ma yihiin hadda xeer hoosaadkan sharcigan oo la yidhaahdo muxuu ahay sharciga hay-adda muxuu ahay sirdoonka sharcigiisa xaq waxaad u leedihiin intaadna golaha keenin inaad fiirisiin sababtoo ah ma hay-ad oo rayid ahaa oo civilian ahaa mase waa hay-ad ciidan kuma caddo hadday hay-ad ciidan tahay dastuurka dalka qodobka 126 in wax laga bedelo waayo oo muxuu ahay loo bedela in ciidankeena uu yahay 3 ciidan waad iska qabateen mar haddaad qabateen oo baarlamaanka hor keenteen haddii aqalkii sare noo waco aan bedelno dastuurka hay-addan hay-ad civilian aan ka dhigno waayo sharcigeeda ayadoona baarlamaanka la horkeenin ka hor ayaan arkay waxaa ku qoran muxuu ahay agaasimaheeda xataa in 4 sano maadhaykiisa uu yahay sida baarlamaanka oo kale ciidan ma aha marka waa hay-ad civilian hay-ad civilian markay tahay waxaa u baahan yahay intaan baarlamaanka la keenin ka hor in dastuurka wax laga bedelo sharcigan oo muxuu ahay cunaqabataynta maaliyadda iyo sharcigan oo muxuu ahay hay-addaba labadaba waxaa laga soo minguuriyey sharcigii argagixisada dirirka waa la tafaariiq waay qodobadii waxaan idin keenay haddaad rabtiin sharcigii guddoomiye aadamadooda ruuxiisa uu og yahay ee kambaalo aan ku soo samaynay ee la dagaalanka argagixisada dhammaan qodobada labadan sharci ku jiraba waxaa laga soo minguuriyey sharcigii argagixisada kan waxaa weeye mid muxuu ahay maaliyadda dadka muxuu ahay gacansaarka labada nimankaa lagu muxuu ahay lagu cunaqabataynayo kanna waxaa weeye falkii iyo siday wax u inqaabi lahayd hay-adda labadaba waxaa laga soo minguuriyey sharcigii la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka mari waayey ayaa laga soo minguuriyey marka guddoomiye yaanan luuso hoosgelinin waxaan nahay baarlamaan waxaan nahay muxuu ahay dad wax fahmaya yaan loola dhaqmi baarlamaanka yaan lagula dhaqmi dad aan waxba fahmaynin yaan lagula dhaqmi tan kale la jiifyaa bannaan naga dhaaf si baarlamaanku kalsooni uu u helo loo soo xaadiro sharciga siduu u faraayo mooshinkii aniga aan kuu keenin meel ku sheeg xildhibaanada sharafta leh horta ajendahan wuxuu ahaa maanta in la qiibiyo qodobadaas shariyaadkaas iyo meeshii xaadirinta aan ku bedelnay in xeer hoosaadka guddoomiyaha guddiga xeerhaaska hooga ka taabto intaas horta ajendahan ahaa qodobadan oo hadda xildhibaan daahir dhexgalay welina ma soo gaarin waa la qiibiyey guddiga joogtada waa soo maray nidaamkiisu ku socdaa markuu la soo gaaro ayaa laga hadli doonaa dalka dastuuriyan 4 ciidanu leeyahay dastuurkeenu ku yaala macnaha qof iska alifay ma laha taasna markaan gaarna ka hadlayna waxa la gaarin in laga hadlo ma aha maanta kaliya waxaan ku darsanay isxaadirintii oo xildhibaanadii iska imaan waayay inay sheegaan guddiga anshaxay ay rabeen yaa waxaan idhi bal idinka soo diyaarsada maanta dib u dhiga istoosin xun baa loola jeeday
xildhibaanka saaxiibkayna mooshinkuu sheegaya aniga ima soo gaarin meeshuu geeyey asiga ii imaan doona asiga ii sheegi doona marka wuxuu ku saabsanaa ma ogi mana arkin marka baarlamaanka hortiis waxyaala aan jirin lagu sheega ma habboona aniga ima soo gaarin mooshinkaas marka walaalayaal idinku aad iyo aad u mahadsan waxaan dhihi lahaa xildhibaan cabdulaahi carab gudoomiye sidaynu ku ballansanay mayma maqlay miya kulankeenu u dambeeyey formi waaye koram la'aan wuxuu ballanteenu hayd inaad xaadirisid xildhibaanada golaha ka maqan ee golahani ka shaqayn laaya markii saaka aynu nimid waad bedeshay ajandihii waxaad tidhahdeen liisaskii baa dib loo habaynayaa waa la hubinayaa waa qaadanay isla hadda innagoo kulankan joognaa ayaa wuxuu aad bedesheen qorshiya waxaad tidhaahdeen xildhibaanada maqan iyo kuwa jooga bushqad ayaanu u diraynaa iyagu ay akhriftay intay maqnaayeen gudoomiye waxaan kuu soo jeedinay inaad maaragtay go-aanka jilicsan iska daysid xildhibaanada maqan ee golahan ka maqan ee ummaddu maaragtay shaqadii u dirsatay qabsan la inaad xaadirisid dadku ogaadaan xildhibaanadaas inay caqabad ku yihiin dalkan shuruucdii iyo xeerarkii loo samayn lahaa go-aan jileeca iska dhaaf ku adkayso dhibkaaga ma imanaysa laakiin haddaad maalin walba go-aankii 10 jeer bedeshid dee inta kalead niyad jebinaysa maalin walba halkan imanaysa waa mahadsanti gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad xildhibaanada sharafta leh dhammaan waxaad ugu salaam salaanta islaamka waxaan rabaa horta inta aan gelin qodobada iyo xeerkii wax laga hadlaya inta aan gelin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada dawladda iyo ciidamada deegaanka oo 10 sano dadka meeshii lagu dhibaateynaya jilib iyo gandarsi xoreeyey inaan u mahadceliyaa rabaa hortiin inaan ugu mahadceliyo sababtoo ah 10 sano dadka dhibaato badan ay ku jireen dhibaatadaas shalay lagu kala baxay wadadii badda ee xeebta jaziira ilaa ay marka waa isku furan tahay aad u mahadsantiin tan labaad gudoomiyaha waxa laga hadlayo waa xeer hoosaadka horta xildhibaanka saaxiibka iyo cabdisamad si luqad adagu ku hadlo luqad adagu ku hadlay xildhibaanada dadka deegaan ee matalaan sax waaye aniga waa qabaa xildhibaanada inay soo xaadiraan wadankan shuruucyada in la ansixiyaa la rabaa shaqo badan in la qabtaa la rabaa midna inuu dibadda ku maqnaado midna gurigiisa iska jiifo midna 3 saac u imaado wax isqabta maaha laakiin gudoomiyaha waxaa laga rabaa shaqadaas asaa loo idmaday guddoonka baarlamaanka shaqada ayagaa loo idmaday inay ayaga go-aan ka soo qaataana la rabaa qofkii maqanne wixii ay ku dhaqalaayeen qofkii joogane iyo abaalmarinta ay sii lahaayeen ayagaa laga rabaa laakiin xildhibaanka saaxiibkeyga cabdisamad waxaan rabaa inaan u sheego horta waa baarlamaanka dastuurkii ku qoran yihiin wixii xaq uu leeyahay wuxuuse xaq u leeyahay dastuurku ku qoran yahay baarlamaankii oo xildhibaankii maqnaado 5 beri ee xildhibaankii 10 beri maqnaado waxa waa dastuurku mu qornay in lacag laga jaraayo aan weligay maqnaano horta maalin walba jooga laakiin meel ay ku qoran tahay in lacag lagu jaraayo maba arkin baan ma dastuurkan mu qornay dhageysadii xeeroosaadka sidiisa dastuurku ka soo farcmaa waxaan dastuurkii xeeroosaadka inay iswaafaqaan al rabaa markii hore tan labaad wadankan waxaa ka socda dagaalaa ka socday dhibaato macnaa ii sheegay waxaa lala dagaalaya nimanka argagixisada dadka dhibaateeyaa lala dagaalaya wadankan xildhibaanka deegaankiisa inuu aado hadduu rabo oo la dhaho 30 xildhibaana fasax loo ogol yahay adigina aad dagaal u socotid oo deegaankaaga rabtid inaad xoreysid fasax ma aadaysid lagu dhaho kabar taas iyadana waxaa waaye dhibaato kale waa taasan marka aniga waxaa qabaa qofka in loo fiiriyo qaabka ugu baxayo shaqada ugu baxayo haddii sheekadaas guddoonka ayaga ay ka shaqeynin oo xildhibaanada oo guddi hoosaadka xeer hoosaadka ka shaqeynaya la dhaho qof walba saaxiibkiisu fasaxa kan kalena waa la celinaa sida hadda dhacdo kale aniga qofka saddexaad ahaa inuu hadla rabi qofka 20aad laga dhigi mafahanteed qof walba qofkuu rabo wuxuu rabo oo sameynaa waay meeshaan qof walba dad uu mitila deegaan uu mitila baarlamaanka in lasoo xaadirin muhiim waay dadkaaga waxay ku soo dirsadeen shuruucda wadankan laga ansixinayo ama shuruucda wadankan ee lagu shaqeynayo in adiga aad ka warhaysida lagu soo dirsado 10 milyan oo qof laga soo dhaxbixiyay taas aniga waa qabaa gudoomiyaha waxa ka codsanaynaa baashi inaan la jilcinin maalin inaan wax la keenin wixii aan laga noqonin xildhibaanka gudoomiye markii adiga lagu dooranayo kalsooniya lagu doortay guddoonka baarlamaanka 3 kalsooniya lagu doortay xildhibaanadaana doorteen annaga waxaa diyaar u nahay wax allaale wixii annaga aqaladna idinku inaana saxdaana diyaar u nahay
taas annagaa diyaarway sababtoo waxaa idin dooran way laakiin xildhibaanada adi haddii aadheeda guddi hoosaadka waxaasa soo sameeyaan guddiga maaliyadda waxaasa soo sameeyaan guddi hebel waxaasa soo sameeyaan wixii ka imaada had mas-uuliyaddeed guddoonkaa qaadaya ani taasaa qabaa waa mahadsantihiin annaga mar walba inay naga go-naataa la rabaa waddanka inaa u shaqeyn diyaar inaa u noqon subaxdii 2 saac in la imaado qofka imaan waayene go-aanka laga qaadanayo wadda sax in la marsiiyo waa mahadsantihiin axmed waa ku siinaya doodii waa dheeratay dood kuma talagalayn saakin qodobadaas la sheegayo Yusuf baa ku siinaya adaa ku xiga waxaan rabaa xildhibaanada inay fahmaan arrinta uu akhrinayo guddoomiyaha guddiga macnaheedu maaha weliba hadda laguma darin baarlamaankii 10 saas ahaa weligeedna maaragtay dhibaato kama imaanin guddiga quorumkiis ilaalisu u baahan yahay quorum weynahana ilaalisu u baahan yahay guddoomiyaha wuxuu ku xisaabtamaya guddigiisii quorumka maaragtay emergency hadday dhacdo qofka dhibaato la kulmo cidna ma celinayso laakiin si uu maaragtay guddiga maaragtay quorumka maaragtay u ilaalsado guddiga guddoomiyaha guddigaas xildhibaanadiis haddii quorumka ka bacayo dib u dhiganaya haddii quorumkiis dhan yahay waa soo fasaxayaa habdhooruu soo maraa nidaam horey u jiri waaye haddana anaguna waa akrinay waa qaadanay taas macnaheedu maaha wax hadda la alifiyey ma aha xildhibaanada waxaan u malaynayaa xildhibaanadii horey ugu soo jiri way ogyihiin xildhibaanada cusubna waxaan rabaa inay ogaadaan heer hoosaad horey u jiray oo nidaamka baarlamaanka lagu maamulo inuu yahay qodobkaas inaad ogaatiin waay maahayna hadda lama keenin marka xildhibaan saajid waa ku sii mahadsaned guddoomiye mudanayaal marwooyin dhammaan waxaa idinku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu guddoomiye waa mahadsan tahay horta annaga waxaan ku doorannay in aad doodana noo qaybiso si cadaaladana aad noogu qaybiso waxaa isweydiin mudan golaha inta fadhido dhammaan way arkeen istaagayga iyo boontiga fadharka aan qaadanayay laakiin ishaada waa ay arki weysay marka ma aqaana sababta ishaada cadaaladaan ka rabnaa guddoomiye intaasaan ka leeyahay horta taas waa mahadsan tahay tan labaad kooramka ama lambarka ayee meeshaan go-aamada lagu qaato iyo sharciyada la marsiiya iyo doodaha laga dhiibtaba kooram bay ku furmaan kooramka mararka qaar waa la saxiixaa golaha wasiirada qaar ay yimaado way saxiixdaan wayna ka tagaan marka kooramkii saakay la saxiixay miyaa go-aan lagu qaataa mase lambarka fadhiyo ayaa go-aan lagu qaadanayaa kiiskaas waa kiis taagan mararka qaar waxaa dhacdo dad badan inay baxaan ayadii oo go-aankiina sida lagu qaato oo wixii sharciga meeshaas la marsiiyo taas marka waxay u baahan tahay meeshaas calaamad su-aala saaran tan kale qodob waxaa jira dadka qaar ay ka dhawaajiyeen oo ay dhaheen wixii aan ka doodnay conclusionkii ka soo baxay iyo wixii ka soo baxay dibna lookuma soo celiyo resultkii anigu waxaan soo jeedi lahaa sida baarlamaanka 9aad ay samayn jireen oo kale ama xogta aan ku helnay in minadka halkan la qoro minadkii laga akhriyo halkan wixii xildhibaanadu ay ka doodeen doodoodii in halkan laga akhriyo marka xildhibaanada halka hadalka soo jeediyey dhahay waxayna laguma soo daro meesha ayay ka cadaan lahayd in la doodayna la tixgeliyey oo lagu soo daray wixii laga dooday iyo in kale waxay ka cadaan lahayd halkan marka waxaa la rabay fadhi kasta marka uu soo xirmaayo ama maalin kasta marka ugu dambayso in halkan laga akhriyo wixii laga dooday conclusionka ka soo baxay maadaama ay joogaan karaaniyaashii qoraayay qoraalada waayo waxaa dhacday hadda xitaa miisaaniyadii la ansixiyey waxyaabaha lagu soo kordhiyey oo guddiga maaliyadda ay ku soo kordhiyeen waxaa ka mid ahaa in loo weeciyo madaxyada qaarkood muxuu ahaa cunada xagga ciidanka iyo muxuu ahaa dhanka caafimaadka labada isbitaale lagu soo daray waxaa ka mid ahaa martini iyo banaadir hadda haddaan dib u waraysanay waxay noo sheegayaan inaan waxba lagu soo kordhin oo sideedii arrintu ay taagan tahay waad xaqiijin doontaan doodaas way taagan tahay sideedii inay taagan tahay bale waxaa naloo sheegay oo xitaa wasiirka naftarkiisa wax horey loo siiyey in looga dhigay sidii tii hadda muxuu ahaa mid lasoo kordhiyey oo kale waxaan rabaa marka in wax alla wixii laga doodo guddi mara la muxuu ahaa ansixiyo wax ka bedel lagu sameeyeyna lagu ansixiyo wixii la bedelay inaan aragno waa u baahana qodobka ugu dambeeya qodobka kale waxa waaye
xildhibaanada horena way u sheegeen laakiin anigu waxaan rabaa inaan sakan gareeyo oo ah waxaa laga jaraa $100 waxaa la yidhaahdaa qofka dhintay baa lagu kaalmeeyaa wax saasaa la yidhahdaa xildhibaanadaa laga jaraa bil kasta horta aad u socota ma naqaan meesha ay u socoto gudoomiye waa mahadsan tahay annaga waxaan dareemaynaa ka xildhibaano ahaan intii asxaabtii hore ay qabeenaan qabnaa waa ku doorannay shalay xildhibaano wada siman aan ahayn maanta waxaan dhahnay jeermaan noo noqo guddoonka waa uga mahadcelinaynaa inayna jeer gareeyaan laakiin waxaan dareemaynaa iridaas baabuurta qaar waa nan stop xildhibaanada qaar hit baa la yidhaahdaa halkaan haddii lasoo galo xitaa annaga xafiis kale ma lihin oo xafiiska guddoomiyaha noo xafiisa golo wasiirana ma tagno xafiiskooda ma lihin xaggaas kalena ma galno kii aan gelaynayna maalmahan waxaad moodaa sidii in la leeyahay ha loo soo fasaxa loo soo qaato camal ay u eg tahay marka goormaan noqonnay markii hore isku mid aan ahaana ma liibaanayaasha lagu liibaana goormaan noqonnay waa mahadsan xildhibaanada sharafta leh dood aan soo ururaynin marka aniga waxaan soo jeedinaa xildhibaano badan oo aad u sharaf badan oo hadalka ku qorana jira maxamed raxmaana ka mid ah sareeda ka mid ah casho koosa ka mid ah laakiin maadaama ajendihii noqday jaanta rugu noqday salaadina la joogo waxaan rabaa haddii istoosintii yaraydi maaragtay nala faagatay ajendaha maalin waa ka dhigan karnaa maaragtay in waxyaalaha qaladaadkana laga hadlo waa ka dhigan karnaa xildhibaanada sharafta leh waxaa idinka codsanayaa dadkii xildhibaanadii harsanaa inaan dib u dhigano aniga xildhibaanada isku mid ay noo yihiin sharaftooda waa ilaalinaynaa anigu dhammaanteen waxaa lanooga baahan yahay ajendaha aan maalintaas ka dooday inaan xoogga saarno shuruucdeen aan ilaalsano intaasaa muhiim ah xildhibaanadii harsanaa raalli ahaada waa 6 saac bar marka idinkoo aad iyo aad u mahadsan qodobadii hataan isla garanay heer hoos waa qiibsanay shuruucdii waa la qiibiyey barnaamijkii barburaadijintii heer hoosaadka waa dhegaysanay xildhibaanadii maaragtay aragtadooda waa dhiibtaan intii ka gaartay inta kale aniga idinka qabsanay idinkoo aad iyo aad u mahadsan raalli ahaada fadhigeena maanta waa xidhinaynaa waa noo xidhin yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu